qisa aad iga yaabisay baa jirtay inuu ku dhacay kansar. السلام عليكم kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada farshaxan iyo muuqaal kale kusoo dhawaada mid ka mid ah qormooyinkeennii caafimaad ee aynu soo qaadan jirnay. maanta waxaanu soo qaadanaynaa dhibaatooyinka sigaarku ku haya caafimaadka aadanaha. daraasado badan oo la sameeyay ayaa waxaa lagu ogaaday in 60% dadka sigaarka cabba ee dhinta ay u dhintaan xanuuno la xidhiidha neefsiga ama kansar ku dhaca ama xanuuno la xidhiidha cabbidda sigaarka. in badan baa laga hadlay sigaarka iyo mukhaadaraadka ku jira inagu waxaa saynis ahaan inaguma gelayno iyo waxyaabaha ku jiriyo waxyaabaha ku samaysan yahay inagu taariikh kooban in yaro review ayaynu ka qaadanaynaa daaqad yar baynu ka eegaynaa wax badan kama wada warramayno. hadda waxaanu eegaynaa 3 qof oo caan ahaa oo u dhintay lung cancer ama kansarka sanbabada ku dhaca ee uu sababay sigaar. inta u badan kansarka waxa keena tubaakada ku jirta ama qiiqa ku jira ee ku kaydsama ama sanbabada ama dhuunta ee sigaarku keeno. 3 qof oo caan ahaa runtii dad badan oo caan ahaa oo sigaar u dhintay way jiraan ama tubaako u dhintay. tubaako markaanu leenahay sigaar oo keliya lagama samayn karo waxyaabo badan oo kaloo si kale loo nuugaano way jiraan. marka 3 nin 3duba waxay ahaayeen inta badan waxaad moodaa xagga fanka inay balwadu ku badan tahay. soomaalideennaba waad aragtaa nin fanaan oo heeso oo aan jaal cunin aad buu u yaryahay waayo meeshii dee ugu tegayay dadkii wax tumayay iyo dadkii ayaa wada qaylaya qol marfisho wada fadhiya marka way adag tahay siduu isna iskaga ilaaliya. haddaba 3dan qof aynu soo qaadanaynaa waa 3 qofkan taariikhdooda si fiican u soo helay maadaama inkastoo ay jiraan dad badan oo madaxweyneyaale oo ra'iisul wasaareyaale oo xildhibaanale oo wasiirale oo u dhintay lung cancer ama kansarka sanbabada ama throat cancer ama kansarka dhuunta ee cumaha oo sababay sigaar way jiraan. laakiin waxaan 3dan qof soo qaatay taariikhdooda oo dhammaystiran ayaan soo helay midkiiba halkii uu ku dhashay iyo halkii uu ku noolaan jiray iyo taariikhdii uu dhashay iyo taariikhdii uu dhintay intaba. 3dan qof 3duba waa dad ku jira fanka waa fanaanad iyo nin muusigyahana oo musician iyo nin film producer ama film director oo filmaanta soo saari jiray Mareykan ahaa. waayahay qofka ugu horeeya ee soo qaadan doonaa waa nin la oran jiray Paul Newman oo Mareykan ahaa. wuxuu ahaa nin cadaan oo Mareykan ah. waxa aanu dhashay sanadkii 1925kii waxaanu dhintay 2008 isagoo 83 jira ayuu dhintay lung cancer ama kansarka sanbabada ku dhaca ee uu sababo sigaarku. waynu ognahay inta badan dadka fanka ku jira inay ku badan yihiin balwadaha siiba marka reer Yurub ama Mareykan la eego. waxaynu ognahay ninkii la oran jiray Bob Marley sidii balwadu ku ahaa in markii dambe jidhkiisaba laga waayay meel dhaqaaqda oo la yidhi lafahaagaba way dhammaadeen dhakhaatiirtu ay ku tiri kadibna sidii meydkiisa looga helay gurigiisa. inta u badan nimanka reer galbeedka ama nimanka reer Yurub ama Mareykan fanaaniintoodu waxaa la helaa ama dadkooga caanka inta u badan marka ay dhimanayaan way yaryihiin kuwa dhakhtar ku dhinta ama xanuun kusoo boodo ku dhinta. laakiin waxay inta badan dhintaan iyagoo balwada ama khamri cabayo sakhraansan unbaa la arkay isagoo gurigiisa dhex yaalla subax markuu soo kici waayo bay boolisku yimaadaan ama laga wargeliyaa. marka ninkan waxa uu noolaa wuxuu ahaa 83 jir wuxuu ku dhashay gobolka Ohio ee Mareykanka. wuxuu ahaa nin fanaana film producer iyo film director labadaba uu ahaa. waxa uu dhintay isagoo 83 waxa aanu ku dhintay lung cancer ama kansarka sanbabada ku dhaca. waayaan ka gudubna ninkaas wuxuu ahaa Paul Newman. ninka ku xigay waxa weeyaan George Harrison. isna wuxuu ahaa nin British nin Ingiriis u ahaa 58 jir buu isna ugu dhintay lung cancer magaalada London. marka hore wuxuu ku dhashay magaalada Liverpool ee Ingiriiska waxaanu dhashay 1943kii waxaanu dhintay 2001 isagoo 58 jira ayuu u dhintay lung cancer oo sababay sigaar. aakhirkiina wuxuu ku dhintay magaalada London. qofka ugu dambeeyay soo qaadanaynaa waxa weeyaan fanaanad Afro Americanisa ama waa African American waa dadka madowga ah ee Mareykanka ay ahayd fanaanada aad u caan ahayd. waxa la oran jiray Donna Summer waxay dhalatay 1948 iyadaana ugu dambeysay 3dan qofkii dhinta waxaanay dhimatay 2012kii. waa 7 sano ka hor ayay ku dhimatay gobolka Texas. marka horena waxa ay ku dhalatay gobolka Michigan. waayahay waxay ahayd fanaanad madowga sidoo kale heesaha ay sameyn jirtay waxaanay ku dhimatay da'da 64. waxay dhalatay 48kii waxaanay dhimatay 2012kii. intaba 3 qof ay soo qaadanay waxa dilay lung cancer ama kansarka ku dhaca sanbabada.
kolley waxaan dawo lahayn ma jiraan ilaahay wax walba dawadiisa uu soo raaciyey laakiin bini aadamkun baan weli garan qisa aada iga yaabisay baa jirtay ninuu ku dhacay kansar oo Chinese ahaa Maraykanka ku noolaa ayaa waxa uu tegey dhakhtar buu tegey dhakhtarkii baa ku yidhi life span-kaaga ama noloshaadiiba waxaa ka hadhay 6 bilood kadib kansarka uu kugu fidayaa kansarka cunuhu markaa isaga ahaa kansarkuna waxa weeyaan xididdo kasoo dulbaxa xididada kale oo cunaha hadday tahayna cunahay ka awdayaan haddii kalena sambabada iyo waxan ay shaqadooda joojinayaan oo xididadii awdayaan xididdo dheeraad oo useless oo aan waxba kuu qabanayna soo baxay weeyaan markaa ninkii dhakhtar buu tegey dhakhtarkii wuxuu ku yidhi noloshaadii 6 bilood baa ka hadhay dabeetana ninka uu yaabay aad buu naxay lacag yar uu iska haystay maalqabeen caadi ma ahayn laakiin wax yar oo isaga nolol maalmeedkiisa ku filan uu haystay dabeetana dhakhtarka luu tegey dhakhtarkiina sidii unbuu ku yidhi markaan eegay sida cudurkan xawaaraha ku socdo cudurkan kansarka ku hayaa 6 bilood ma sii noolaan kartid buu ku yidhi isagoo argagax ugu sii biiray oo wadnuhu haan leekaaday ayuu haddana tegey dhakhtar kale dhakhtarkii sidii iyo si leeg wuxuu ku yidhi waxa kuu hadhay 7 bilood wax ka yar ayaad noolaan kartaa aduu isku soo wada duub ninkii 4 dhakhtar buu tegey 4tii dhakhtarba isku afun bay ku yidhaahdeen 6 bilood kadib waad dhimanaysaa haddii aanad kaba soo horrayn ninkuu u yaabay xamaantiisii buu iska gurtay alaabtii buu iska gurtay tigir ku goosto wuxuu tegey dalkiisii buu tago China u tegey dabeetana inta badan Chinaha khudradda ayay cunaan dadka China waa dadka aan hore u gaboobin dunida oday weyn oo ordaya darada saayo 90 jir inagana 50 jirkeena foorsado khalaas dhacaba markuu tegey China wuxuu sameeyey dhirtii iyo khudraddii wixii iska cuni jiray khudrad bay inta badan iskaga nool yihiin sideenan waxyaabo cunto culculus ma cunaan oo wada calool ma leh waa dad wada dhisdhisan weeyaan oo jimicsigooduna badan yahay ninkii markuu sanad joogay ayuu iska waayey wixii 6 bilood horta way dhaaftay oo runode dhakhtaru ma yidhi alla ma odhan sidee doonta u dhacaysaa markay 6 bilood dhaaftay ayuu iska waayeyba caajiskii iyo wixii iyo xanuunkii iyo tabcaankii iyo dareenkii buu iska waayey dabeetana uu iska sii joogay wixiisii iska sii watay 2 sano markuu soo joogay ee uu istareemay inaanu waxba imika qabin ayuu Maraykanka ku noqdo tigirkii dib u goostay wuu tegey magaalada New York buu tegey dabeetana dhakhtar buu tegey dhakhtarkii ugu horreeyay buu tegey wuxuu u tegey 4tii dhakhtar ee uu soo maray kuwii wad dhimanaysaa oo 4tiiba dhintay 2 sano gudahood 4tii dhakhtar isaga kuwii 6 bilood ku dhimanaysaa oo iyagu ku dhintay intii uu ka maqnaa 2 sano ka maqnaa markaa runtii ajasha Ilaahay baa haya laakiin cudurka laftiisuna waa cudur halis ah fadlan haddii aad ka heshay muuqaalkan ama ogaanaysid inaad sii faafiso oo aad asxaabtaada la sii wadaagto waa mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waa inooyo muuqaalka xiga